السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصاحبك حسن كلا يجنالك إني زينو وذاك دحنا حيصة يا لكن كل يوم حيسوك عشي يعني مرة بمشي أنا يدحر كان جاء الله أصحابتي ذا أنت معك صاحب كنا هاي يوتيوبر إسرائيل هاي أنت في أصحابته مشان يا شيكي برالي مشاكو عمر يا وهاي بريها اللي مشي كينين ما فهمتين مرقحة أحاول بوحة لقبتها أهميتها iyo niyadda laga qabtaa yaa marka aad iyo aadaan ugu faraxsanaa caawo inaan mar laba is aragno sheekadii inta ka helo yaa waa arrin cajiib ah oo farxaddeeda wadato yaa marka yaa maaragtay waxaan ka jafaynaa wax jafo ma usoo fadhiistay sheeko ma usoo fadhiistay caajis aan la soo fadhiistay sheeko gaar hataa lama soo fadhiisan ma fahanteen marka haddii iskaa darsanto daal dhaxan yaa caajis yaa iyo hay ahaatay without topic dhibaatadeeda leedahay saddexdaasa isku darsantay marka laakiin niyadda bisan ka socdaa marka asxaabtiina waa mahadsantihiin walaalayaal waxaan leeyahay yaal isxaasidin hay ahaatay war marka youtubereyda halaga qayb qaato wax walba taalinta bulshada waa iska jeceshahay waa iska taageeraa waa arrin wada jirta yaa laakiin waxyaabaha waa kala duwan yihiin waa kala noocnooyo badan yihiin marka qof walaalka markaa aragto wuxuu kaa codsanayo subscribe share iyo like yaa subscribe-ta iyo like-ta la isku caawiyo ay commentiga ma garateen wax kaloo hadda adigu caawin kartid laakiin intaasoo horumar ah soomaaliyey dhalinyaroy yaa saan ognahay aan la wada soconno waddankeeni yaa waa laga wada ordooyaa dadku waa ka wada ordooyaa sabab maxay waaye waddanka horta saan ma hadda u yahay maasha allah horumaraa lagu socdaa waa arrin wanaagsan laakiin markii waddamadan loo horumar markii loo fiirsho yaa ammaan ma jiro waxay ahayd abaar baahi gaajo waxay ahayd busaarad shiid amni darro maamul xumo musuq maasuq waxay ahayd dadkiioo wax isku quurin qof walba inuu keligiis noolaado rabo tan ugu daran ugu dhaada waxay tahay danta guud lama yaqaano dantii guuda naga dhimatay halka soomaaliyay caloosha la isku furo hal la is cafiyo dalkeena aan dhisano aan horumarino horumarkiina aan ka shaqeyno xaasidnimo waxay ahayd cuqdad iyo kala geynin iyo nin jeclaysi waxay ahayd yaa siyaasi wuxuu kuu galay wuxuu kuu goyn aan la arkin waxmad kuu tarayaan laakiin danta guud ha la fiirsho wadajirka ha la fiirsho macnaha wadajirka waxaan ula jeedaa meydka wiilka walaalka jaarka kula qofka kugu dhow xaasidin horumarkiisa ku farax adiga kaasoo kala rajay ilaahay ka bari annaga keeni hormaray
aan cagaha qabana si u kuf ayagana koodii nolosha ka dhacay dadkaas gaaladaas Yurubtaas joogay ay kor u soo qaadaan si hami iyo wax u qabsado marka bilcagsi aan nahay nagarateen annaga muslimiin aan nahay maasha Allah dad boqolkiiba boqol muslimiin nahay Soomaalida diinta islaamka wanaagsan yaa xasuustaa anoo yar yaa oo dugsi quraan dhigan waxba la ii bilaabin yaa qofka uu rumaysan malaa'igta aqaan rumaysnahay ilaahay rumaysnayd wax walba rumaysnayd sababtoo ah salaadan laga hor lagu sii sheegay saasaa jirta waxaan rumaysanahay habeenkii markaa jiifato inay malaa'iku ilaalayso yaa waa sax malaa'igana ilaalayso markii xilli walba laakiin habeenkii markaa jiifato malaa'iga ku ilaalayso waa liisa sheegay allah u naxariistee ayide iyo warantay waa rumaystay bin marka maxaa carabtuna waxay tiraahdaa man shaba calaa shayin shaaba calayh ninkii shay ku barbaara ninkii shaygu waxaad ku barbaara marka macnaha waxuu ku barbaara oo ku dhigaa man shaba calaa shayin wixii shay ku barbaara oo ku sugnaadaa marka waxay ahaatay macnaha keliya waxaa naga maqan markii hore hadday taadii hore naga halaawday inaan mar walba iska sii laadna maahan waa in horumarkeenna dad maskaxdeena la dhalaaliyo waxyaabahaas oo dhan waxay ahaatay gacmaha is qabsanaa insha allahu tacaala arrintaas waa arrin wanaagsan waa arrin farxadeeda leh yaa waxaana waxay ahaatay soomaaliduna waa mid waxay ahaatay anfacaan ku dhaafi kara inta hortagno waa noo soo dhowda maalin waxaan rajeyneynaa aan waxay ahaaday Commonwealth wadamada loo yaqaano barwaaqa sooranka aan ku jiri doono G8 aan ku jiri doono wadamada warshadaha leh wadamada wax soo saarka leh wadamada Afrika ku dhaqaalaha badan aan meel walba geedi doono laakiin taas waxay u baahan tahay laba adag iyo isku tanaasul iyo isku samrid iyo danta guud la aqoonsado haddii dan guud la waayo yaa la heli maayo dan gaar marka taasna waa arrin cajiibkeeda leh waa mahadsantiin insha allahu tacaala kilibkiisana intaasuu ku yahay aad iyo aad ii wada salaamo hayaa dhammaantiisa oo dhan tihiin way iska jirjira caajiska waxyaabaha laakiin way iska dhammaan doonaan insha allahu tacaala yaa fiidowga inoogu sii dhalaado ma rabo intaasaan kusii joojinaya insha allahu tacaala aad iyo aad idiin wada salaamo haya